bishii June 13 meydka xaaskii hore ee xidiga kubadda cagta Mareykanka O.J. Simpson, Nicole Brown Simpson iyo saaxiibkeedii Ronald Goldman ayaa laga helay banaanka guriga Nicole iyagoo lagu dilay midi qaybo badan jirkoodii lagaga dhuftay. Xilligaas Nicole iyo O.J. way isfureen waxayna ku kala noolaayeen laba guri balse aad isugu dhow. Kadib baaritaano badan oo lagu sameeyay kiiskan waxaa dilka labadan qof lagu soo oogay O.J. Simpson oo isagu la filayo inuu ka masirsanaa Ronald Goldman maadaama xaaskiisii hore uu aad u jeclaa. balse O.J. wuxuu kiiskan kaga baxsan doonaa qaabka ugu xariifsan ee kiis dil lagaga baxsado. In badan dadku way aamini waayeen in ninkan aan lagu xukumin dilka labadaasi qofood. aan kula wadaago kiiska dil ee ugu sumcadda xumaa guud ahaan Mareykanka inagoo ka bilowayna qaabka dilka uu dhacay oo aad u kala dhigdhigan. ugu horeyn inta aan muuqaalka u guda galin wax yar oo kaliya ayaa inooga haray inaan xirno 100,000 oo saaxiib. fadlan haddii aadan weli inoogu soo biirin soo dhawo oo ku soo biir familkan asxaabtaadana ugu yar inay ka mid noqdaan familkan. aan bilowno muuqaalka. June 12 abaaro 12:30 galabnimo Nicole caruurteeda iyo qaar ka mid ah qoyskeeda ayaa caweys u aaday maqaayad lagu magacaabo Mezlana iyagoo xilli wacan halka ku soo qaatay. saacado kadib qiyaas 3 saac iyo rubi habeenimo Nicole walaasheeda ayaa la soo xiriirtay madaxa maqaayadan iyadoo u sheegaysa in hooyadeed ay halkaas isaga soo ilowday ookiyaalaheedii. Ronald Goldman oo ahaa saaxiibka Nicole oo isagu halkaas ka shaqaynayay ayaa ookiyaalihii soo qaaday wuxuuna soo aaday guriga Nicole. dhanka kale 3 saac ilaa 3 saac bar O.J. Simpson iyo saaxiibkiisii Brian Keto Kellin ayaa iyaguna casho u doontay maqaayadda McDonald's oo ka ag dhaweyd maqaayadda Mezlana. abaaro 3 saac iyo 45 daqiiqo ayay dib ugu soo laabteen gurigii O.J. Keto isagu xilliga wuxuu joogay guriga O.J. oo marti ayuu ku ahaa. markay guriga yimaadeenna qof walba qolkiisa ayuu ku xarooday. dhowr daqiiqadood kadib abaarey 4 saac iyo rubi mid ka mid ah deriska Nicole Brown ayaa sheegay in xilligaas mar uu filin daawanayay uu maqlay qaylada eeyga Nicole iyo wax u eg oohin balse isagu uusan isku shuqulin in uu eego wax qaldan isagoo iska sii watay daawashada filimkiisa. taa oo markii dambe la ogaan doono sababka uu eeyga u qeylinayay inay ahayd in Nicole la dilay misna uu arkay meedkeeda. Alan Park oo ahaa darawalka O.J. Simpson ayaa sheegay in isagu uu yimid guriga O.J. abaare 4 saac iyo 25 daqiiqo maadaama O.J. uu ku qornaa diyaarad baxaysa 5 saac iyo 40 isla habeenkaasi asagana uu u kaxeyn rabay airportka. Alan wuxuu sheegay isla markii uu yimid wuxuu toos u abaaray qolkii O.J. isagoo albaabka u gargaraacay si uu ugu sheego inuu isdiyaariyo balse hal mar xitaa looma jawaabin wuuna isaga soo tegay. qiyaas 4 saac iyo 40 Brian Keto wuxuu sheegay in uu maqlay 3 mar jug xoogan oo ka yeeray dhanka luuqa dambe ee qolka uu isaga jiifay ee guriga O.J. Simpson. isla xilligaas Alan asaguna mar kale ayuu qolkii O.J. gargaraacay balse isla sidii hore oo kale qofna lama hadal oo uu isaga soo tegay. intii uu soo socday ayuu Alan yiri waxaan daaradda banaanka ee guriga ka arkay qof aad u dheer qiyaas mitir iyo 80 senti ah waliba aad u weyn jismi ahaan oo meeshaas sii socda. dabcan wajiga qofkan si fiican u muusan arag balse wax weyn kama dhigin oo qaybta fadhiga ayuu isaga soo laabtay. 10 daqiiqo kadib ayuu mar kale haddana ku laabtay qolkii O.J. markii uu gargaraacay isla markii waxa ka furay O.J. wuxuuna yiri hurda ila tagtay sidaas ayaan garaacagii hore u maqli waayay. haddeerna suuliga ayaan ku jiray oo waan qabiisanayay. dabcan المهم sidii ay isku soo raaceen 5 saac iyo 45 daqiiqo waxa magaalada ka baxday diyaaradii siday O.J. Simpson. muddo yar kadib 6 saac iyo 10 daqiiqo waxa la helay meydka Nicole Brown iyo Ronald Goldman oo dhowr jeer jirkooda la midiyay. cadeemaha laga helay goobta dambigu ka dhacay waxa kamid ahaa gacan gashi ama golofis dhiig leh koofiyad iyo raadka kaba rageed oo dhiig leh. markii O.J. Simpson uu ka degay garoonka magaalada Chicago waxa durbadiiba la xiriiray dambi baare Ron Phillips oo u sheegay in xaaskiisii hore ay dhimatay. isla markii inta uu maqlay O.J. wuxuu weydiiyay dambi baare Phillips yaa dilay. niyada ku hay waxa loo sheegay oo kaliya in ay dhimatay ee looma sheegin in la dilay. halka cala aqal uu ka dhihi lahaa maxaa ku dhacay see ku dhimatay see wax u jiraan durbadiiba wuxuu la soo booday yaa dilay. su'aashii O.J. waxay shaki ku beertay dambi baare Phillips isagoo dalbaday in waraysi dambi baaris laga qaado O.J. waraysi ku dhawaad 3 saacadood socday ayaa laga qaaday waana la iska sii daayay. 4 maalmood kadib June 17 O.J. waxaa lagu soo oogay 2 dambi oo dil ah. si nasiib darro booliiska iskuma soo dhiibin waxaana sidaa loogu dhawaaqay in uu baxsad yahay ninkan. isla maalinkii xigay waxa dhacday mid kamid ah waxyaabihii ugu caansanaa kiiskan. booliiska ayaa O.J. Simpson ku raaxdaystay wadada weyn ee California. gaarigii O.J. xilliga waxa waday mid kamid ah asxaabtiisa oo lagu magacaabo Al Cowlings. intii uu raaxdayskaasi socday waxa jiray cod ay duubeen booliiska sheeko yar oo dhaxmartay O.J. iyo mid kamid ah dambi baariyaasha. waa kan ay la dhageyso. Everybody loves you. Don't do this. I know you're thinking. Oh. Man, just throw it out the window. And nobody's going to get hurt.
I'm the only one that deserves. No, you don't deserve I'ma that. get hurt. You do not deserve to get hurt. You do not deserve to get hurt. Don't do this. All I did was love Nicole. That's all I did was love her. codkan waxaad ka dheehan kartaa in O.J. Simpson uu jiro shay uu ka cabsanayo leeyahayna aniga oo kaliya ayaa dhibaato isoo gaarayso almuhim Al Cowlings oo gaariga kaxeenayay wuxuu booliiska gadaal uga sheegi doonaa in gaariga uusan u joojin maadaama O.J. uu baaskoolad madaxa isaga hayay misna uu rabay in uu isdilo wixii la soo raacdaystaaba ugu dambeyn waxay yimaadeen gurigii O.J. Simpson xogaha yar kadib marka booliiska ay halka yimaadeen waxay gaarigii O.J. ka heleen koolo make up shaarib fake ah baaskoolad iyo baasportkii O.J. saan filayo shaaribkaasi beenta ahaa wuxuu islahaa booliiska waad kaga dhuuman kartaa oo kuma aqoonsan doonaan almuhim ugu dambeyn O.J. Simpson waa la soo qabtay waxaana la soo taagay maxkamadda wixii xigay waxay ahayd mid ka mid ah maxkamadayntii ugu sumcadda xumaa taariikhda Mareykanka O.J. Simpson wuxuu la yimi koox qareeno oo difaacda kooxda lagu magacaabo Dream Team oo ah koox aan innaba caadi ahayn kuwa oo gebi ahaanba dhan kale u jeediyay go'aankii maxkamadda iyo tuhunkii O.J. Simpson inuu yahay dilaaga Nicole iyo Ronald haddii aan eegno cadeemihii ay dambibaarayaashu soo bandhigeen waxaa ka mid ahaa dilka markuu dhacay kadib xilligii booliiska ay wareysi dambibaaris ka qaadayeen O.J. waxay arkeen in mid ka mid ah farihiisa ay dhaawac ahayd sida in ay wax qaleen oo kale sidoo kale dhiigga Nicole Ronald iyo O.J. ayaa laga helay golofiskii yeelay goobta dilku ka dhacay golofiskaasi midkiisa kale waxaa laga helay qaybta dambe ee guriga O.J. Simpson labada golofisba waxay lahaayeen isla dhiigga Nicole Ronald iyo O.J. taa waxaa kaaga sii daran koofidii tiilay goobta dilku ka dhacay waxaa laga helay timo kooxda dambibaaris ee FBI-du ay sheegeen in ay yihiin timaha O.J. sidoo kale marka dib loo raacay waxyaabihii O.J. uu soo iibsaday muddadii ugu dambeysay waxaa la soo ogaaday in uu iibsaday mid dil la mid ah tii looga shakiyey in dilka lagu geystay saantii dhiigga lahayd ee goobta dilku ka dhacay ku tiilayna cabirkeedu wuxuu la ekaaday saanta O.J. sidoo kale saan la mida oo dhiig leh ayaa lagu dhex arkay darsada guriga O.J. inkastoo aan la helin mididii dilka lagu geystay ama kabaha saantan sawirayba haddana 100% ma ahayn mid shaki ku jira in ay isleeyihiin dabcan waan ogahay badankiinu waxaad isleedihiin intan ka badan miyaaba dhiman si ninkan dil loogu xukumo uma maleynayo inay dhiman tahay balse nasiib darro qoladii maxkamadda joogtay middan inalama qabaan wixii dooda kiiska socotaaba ugu dambeyn maxkamaddu waxay soo saartay in O.J. Simpson uu yahay mid aan dembigaasi geysan O.J. ma ahan dilaaga geystay faldambiyeedkan ay yiraahdeen wixii cadeemo la soo bandhigaaba dhammaantoodu ay yihiin kuwa 100% yacni isdhameystiray O.J. waa firii ayaa la yiri sidee ku dhacday indhaha ma laga haystaa garsoorayaashu anaa ku sheegay dhageyso sida ay ku dhacday ma xasuustaa inaan hore u soo sheegnay in O.J. uu la yimi koox aan innaba caadi ahayn kooxdii riyada iyagu ayaa ka hor yimi cadeemahan oo idin waxay yiraahdeen waxaa jira qaladaad badan oo ay ku dhaceen ragga dambigan baarayay ama kuwa soo sheegay in dhiigga O.J. laga helay golofiska goobta dilka yeelay marka ugu horeysaba dambibaarayaashu si saxan uma aruurin cadeemahan xitaa waxyaabihii laga helay goobta dilku ka dhacay si fiican looma baakadeen taa oo keentay in wax badan la isku qaso laga yaabay in dhiigga O.J. uu saba ku yaalin golofiskii laga helay goobta dilku ka dhacay si taa bedelkeed dhiigii gooniga ay ugu qaadeen inay ku qaldeen sidoo kale waxay codsadeen in O.J. lagu tijaabiyo golofiskii laga helay goobta dilka markuu xirtayna way ku yaraadeen oo ficiisaba ma ahayn inkastoo dambibaarayaashu ay taa ka soo horjeesteen maadaama ay sheegeen in golofisada dhowr jeer talaajado wax lagu qaboojiyo la geliyay macquulna ay tahay in ay isdhex galeen ama ay yaraadeen sidoo kale kooxdii difaacaysay O.J. waxay soo bandhigeen cajalad cod oo laga duubay sheeko dhex martay O.J. iyo dambibaare Mark Fuhrman oo isagu ka mid ah ragga dambigan baarayay daqiiqadaha yar ee laga duubay dambibaare Mark ayaa 40 mar erayo cunsuriyadeed ku dhahay O.J. maadaama madow uu yahay sidoo kale waxaa lagu tilmaamay golofiskii labaad ee laga helay guriga O.J. in uu helay dambibaare Mark waliba sida uu isagu qirtay marka uu helayay cidna lama socon almuhim kooxdii O.J. waxay warka ku soo gabagabeeyeen O.J. dambigan ma geysan sida cadna cunsuriyad darteed baa lagu haystaa iyo in uu yahay nin madow ah caano la yaqaano sumcad dilna la rabo in lagu sameeyo dadka la dilayna ay yihiin cadaan dabcan Nicole iyo Ronald waa cadaan ugu dambeyntii garsooradii maxkamadda ayaa ku dhawaaqay in O.J. Simpson uusan ahayn dilaaga geystay falkan misna uunan lahayn wax dambi ah bal haddii uusan O.J. ahayn dilaaga iyuu kaloo noqon karaa mid ka mid ah ragga dilka lagu tuhmay wuxuu ahaa nin dilaa caan ah oo lagu magacaabo Galen Rogers oo isagu lagu soo qabtay dilka ku dhawaad 70 qofood oo afkiis uu ka qirtay Kelly Rogers oo ah walaalka Galen ayaa sheegay in maalinkii uu dhimanayay walaalkiisa Galen uu u sheegay in uu dilay Nicole iyo saaxiibkeeda misna O.J. uu lacag ku siiyo si uu u dilo yacni O.J. ayaa kareystay ninkan si labadaasi qofood uu ugu dilo wuxuu kaloo ku daray Kelly in haddii dib uu xasuustiisa u celiyo agaaraha
habeenkii la dilay Nicole iyo Ronald walaalkiisa Galen wuxuu yimid guriga qoyskooda oo isla California ku yeelay Galen magaalo kale ayuu ku noolaa xilligaas marka ay weydiiyeen wax uu halkan ka soo doonay wuxuu si qosol ah ugu jawaabay Nicole Simpson ayaan xaflad u raaci rabaa inkastoo aragtidan ay u muuqan karto mid saxan haddana marka dib loo raacay xilliga Nicole la dilayay Galen Rogers wuxuu ku jiray xabsi kamid ah xabsiyada California dad kale ayaa xitaa aaminsan wiilka curadka oo u dhalay O.J. Simpson inuu dilay Nicole iyo Ronald O.J. Simpsonna uu halkaasi u tagay kaliya si wiilkiisa uu u daafaco iyadoo xitaa la soo bandhigay sawiro dilka ka hor uu galay Jason Simpson isagoo wata koofida u eg midda goobta dilka laga helay almuhiim qofkii doonaba ha geysto dilkani ilaa hadda ma jiro xal toosan oo kiiskan laga soo saaray balse haddii aan kuu sheego halkii uu ku dambeeyay O.J. September 2007 O.J. Simpson waxaa lagu soo oogay in uu ku lug lahaa dhac weyn oo ka dhacay magaalada Las Vegas marka maxkamadii la soo taagayna dhacaasi oo kaliya ma ahane waxa kaloo lagu soo helay dambiyo sida afduub iyo 12 dhac oo meel kala duwan laga geystay waxaana lagu xukumay 33 sano oo jeel ah kiiskan kadib 85% in ka badan dadku waxay aamineen in O.J. uu ka dambeeyay dilkii Nicole iyo saaxiibkeedii Ronald maadaama dhammaan cadeymaha ila dhuuxday adigu sidee kula tahay O.J. Simpson ma dilay Nicole iyo Ronald halkan ayaan kaga baxayaa muuqaalka maanta waa inoo yimid kan xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh amaana Allah.